dalkayale inagale dalkayale inagale kisa dhise muwadino ilqaan dadkaygo isxilqaan dal walba dadkiisa dhise isxilqaan dalkayale inagale dalkayale inagale kisa dhise muwadino isxilqaan saaka waxaan joognaa waa istaadiyo Lanqayo oo maanta geeda kor lagu subinayo oo ahayn markiisa labaad oo markiisa koobaad markii koobaad geeda waxa ka jar ururka Soosaaya ee gudoomiyahooda Maxamed Warsame Sandool markii labaad oo maanta aan joognaa waxa geedaha ka jaray oo bilicda garoonka soo celiyay ururka midnimada gobolka Hiiraan oo ugu mahadcelinayna ururkan oo lagu yaqaan inay ka qayb qaataan xagga bulshada maanta waxa ka qayb qaateen istaadiyo Lanqayo ayuu ku subinay nadaafadaas oo noqon doonta mid bilicda garoonka lagu soo celinayo aan rajaynin mar dhow insha Allah in kubadda cagta lagu bilaabo isbuucan dhexdiisa oo mahadcelinayna ururka midnimada gobolka Hiiraan waana mahadsanyihiin dabcan garoonkaasi waa garoonada ugu weyn guud ahaanba gobolka Hiiraan ama Soomaaliya runtii waxa afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne lagu tartansiyaa sanadkiiba mar halkaas oo xaafadii soo baxdaba lagu gudoonsiyo koob inaan ka shaqeyno geedahaas geejiniga iyo maaragtay dabcan sidoo kale tood geedaha ka soo cifay maadaama sidii loo dhisay waqtiyada lagu ciyaaro garoonka ma inta kale tood aysan jirin na in dhicin in dayactir ballaaran lagu sameeyo in aan ka gurno geedaha ka soo baxay garoonka gudihiisa si daawadayaasha iyo dhalinyarada ciyaareyso ayna garaafo u gaarin dadka ka soo qayb galayo ay u arkaan bilicda iyo quruxda ee halkaas ay leedahay run ahaantii waxa u sii dhiman in dayactir lagu sii sameeyo in maaragtay iskoobooyin iyo dad dhaqo meesha daawadayaasha iyo taageerayaashu ay ku fadhiisanayaan in loo la gelsho shaqaale aad u tiro badan aydan insha Allah taala bidnil kareem waa ku rajo weynahay inaan sii wadno dadaalkaas dabcan ciyaartu waxay bilaaban doontaa sida loo sheegay waqti dhow waxaan ku faraxsanahay isdhaxgalka bulshada inaan kaalin weyn aan ka qaadahayno hadaan nahay ururka midnimada Hiiraan sidii horey bar loogu bartay inaan ka shaqeyno soo celinta bilicda guud gobolka Hiiraan khaasatan magaalada xafiiskeena uu ku yaalo Beledweyne wax badan aan ka qabanay sida dayactirka argooyinka halkani waa Hirshabeelle TV